wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Hinda Jaamac Gaani ayaa soo gaadhay xarunta magaalada Gobolka Sanaag ee Cerigaabo waxaana duleedka galbeed magaalada Cerigaabo ku soo dhaweeyay barasaabka Gobolka Sanaag intaasi kadibna waxa wafdigan wasiirku ay soo kicitintay gudaha magaalada Cerigaabo halkaas oo garoonka kubadda cagta Dhar Stadium ay kula kulantay qaar kamid ah Derbi Jiifta magaalada Cerigaabo isla markaasina ay u qaybisay waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay sidoo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ee Gobolka Sanaag Faadimo Xaaji Xasan maanta ay ku beegan tahay 12 Rabiicul Awwal oo maalintii dhalashada nabiga waxaan halkan ku soo dhaweynay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo u timi inay booqato lana wadaagto duruufaha ay ku jiraan caruurta Derbi Jiifka ah iyadoo ugu soo tala gashay maanta in la siiyo hab dharkii dhaxanta isla markaana maanta la qadaysiyo timahana laga jaro inta bugtana la daaweeyo halkan inoo jooga neersankii waxaana sidoo kale halkaas ka hadlay barasaabka Gobolka Sanaag Maxamuud Axmed Caalim Timbro wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda waan ku soo dhaweynaa magaalada Cerigaabo waxaan uga mahad celinaynaa iyadoo maalintii mawlid nabiga Eidii Islaamka ay noogu soo hagaagtay inay caruurta dhaxanta jiifta huna u keento maanta farxadana maanta ay qadaysiiso aad baan ugu mahadinaynaa hawl loo baahnaa bay ahayd waxaan soo sheegaynaa sida gobolada kale inaanay lahayn hoy iyo boodin yar oo lagu xareeyo caruurtayadu marka waxaan codsanaynaa tallaabada xigtana inay balagu soo talo gasho inay hoyna u samayso meel ay waxna ku bartaan seexdaana waan kugu mahadnaqaynaa caruurtan runtii kuwa gobolada kale waa ka akhlaaq wanaagsan yihiin intooda badan waxay isku dayaan darbiga iska seexdaan inay shaqo tagaan xaba kuma habsaamaane baalas yar iyo gaari masaxid iyo waa business gaar ah iska samaystaan iyagoo leeyihiin diirka soo dhaweynay waanu mahadnaqaynaa intay nala soo garab qaadatay fanaanada iyo hubkayno ka tayo dhaxanta ay naga difaacday iyo timii naga jirtay oo hambal yaqaan waxaan ka caawinaa horta dhaxamii waa noo keentay hubkii dhaxama laakiinse hoy baan haysan warshana kuma haysano laakiinse waan ku rajaynaynaa in waxbarasho helno maadaama wasiiradda noo joogto ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Hinda Jaamac Gaani oo sheegtay inuu jadda socdaalkeedu salka ku hayo sidii ay caruurta Derbi Jiifta ee ku dhaqan magaalada Cerigaabo ay u gaarsiin lahayd oo ay ka xidhaan dhaxantan dhacaysa saaka waxaan idinku imi inaan idinla wadaago dareenkiina oo aan baahiyaadkiina iyo duruufihiina aan dirso oo dhageysto sidoo kale inay maadaama ay xilli dhaxameedkii tahay finaanada dhaxameed inaan idin qaybiyo saas baa socodkayga iyo ujeedadaydu ahayd in wixiina dhaawacan loo sameeyo daaweyn in kuwiina timuhu ku baxeen laga gooyo oo loo sameeyo maxaan sheegayay ra'iis la loo keeno timo jaris loo sameeyo intaas baa socodkayga iyo ujeedadaydu ahayd wad ku mahadsantihiin inaad goobtan isugu timaadeen waan idinka mahad celinayaa waxaan hay maamadiina arrimaha bulshada u taagan idinkana waxaan jeclaa inaan codkiina maqlo iyo baahidiina iyo duruufihiina aad intaasi kadibna caruurtan Derbi Jiifka ayaa wasiiradda iyo barasaabka kala qayb galeen qada sharaf ay u sameysay Barkhadle Maxamuud Geedi bulsho TV magaalada Cerigaabo